maanta mar kale kala seexday heshiis rasmi ah oo ku saabsan qabsoomidda doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee sanadka 2020. heshiiskan rasmiga ah ee laga gaaray qabsoomidda doorashooyinka ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ayaa waxaa seexay madaxweynaha Somaliland ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi, gudoomiyaha xisbiga Uxud Engineer Faysal Ali Waraabe iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. heshiiskan oo ka kooban 8 qodob ayaa waxaa ka mid ah qodobadiisa in doorashada golaha wakiilada lagu galo xeerkii dhaqangalka ah ee doorashada golaha wakiilada lagu galay sanadkii 2005. madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici, gudoomiyaha xisbiga Uxud Engineer Faysal Ali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro, gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani oo heshiiskan rasmiga ka hadlaya waxaa hadaladoodii ka mid ahaa. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي محمد سبحانه وتعالى. waxaanu maanta oo bisha 12 tahay bishii July Ilaahay noo suurta geliyay inaanu wada saxano oo isku raacno qodobadii hor taagnaa ee u baahnaa si doorasho wanaagsan oo xalaal inoogu dhacdo in meesha laga saaro oo lagu heshiiyo muranka keeni jiray ayaan maanta ka heshiinay. alxamdulillaah Ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala ana waxaanu ku caan baxnay ummad ay iska rafatay marka u dambaysa danta ummadda ku midooba. marka waxa la shacabka reer Somaliland waxaan idinku boorinayaa in u diyaar garoodaan doorasho xaq ah oo xalaal ah. Ilaahay billahi ta'ala dad wanaagsan oo iimaan leh oo amaanada xijin kara aynu soo dooranaa oo noo keentaan si aan u sharaxno. marka maanta waxa weeye waa cusub ay noo bariyay waa aragtan 3 xusbi ee qaran oo gumcaa isqabsaday waxaan noo tala aan ku gaadhnay in sida wada jirka ah aanu doorashadii uga hawlgalnaa si ay nagu dhici lahayd doorasho nabadgelyo oo xor oo xalaal ah. marka qofka soo reer Somaliland waxaan leenahay xil baa ku saaran nabadgelyo la ilaaliyo, diiwaangelinta loo diyaar garooba. komishinkana waxaan ugu ducaynay Ilaahay xilka ku asturo, xilka loo dhiibay Ilaahay ku asturo oo kuwii guulka gaara iyo magac ku helay Ilaahay ka dhigo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. maanta waxaa 3 xisbi qaran soo afjareen murankii inta badan ka taagnaa qabashada doorashooyinka, doorashada golaha wakiilada iyo golaha deegaanka, iyagoo muddo dheer hadda wada hadal ku jiray. waxaana isku waafaqeen 3 xisbi in wixii caqabad ahaa dhammaantood laga hor qaado doorashadina insha Allah inoo qabsanto 2020 labadii doorasho isku sidkan waxaan rajaynaynaa si dhaqsaana
in jadwalkii doorashooyinka commissionku uu soo saaro insha allahu marka shacbiga waxaan leenahay uun muddo badan ma sugayseen doorasho hadday wakiilo tahay iyo hadday deegaan tahayba aynu diyaar garowno gacmaha isu qabsano doorashada dhammaan wixii ka soo baxa ee caqabado cusubna aynu gees uga soo wada jeedno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي بام هذله وحمانت دمانتين ما قرن كسمانة دمانتي فرحين إن خلافك ودي درس وجي تمي حسيني قبصومي الدورشين كسمالان قولها وكيل الله يقولها دجانك أنا مانتا أو بيشو تهاي بيشو تدباد لبية طبعا تهاي سنة كلامكم إلا بعتنكا ومالنا حدا صاف شرمي ونبدل شيس صدق حسب الجارين شيس كي هراء تدبير عتنكي بيشي لبعض للجاري وحنا له ما عندنا إن سوى ناس هاو شاسي مدة وده هذا اللير كذب إن سوقنا ندي صدق حسب قرن ناس كوا أفكارتين إن دورشة لو ضريرو لون ديار جروبو كويش كعصبنا وصاد دياريو جدول كي دورشة ده وقت أوصل تجلسنا ورق مدة وجابن سنة كلا ممكن لبعتن كأ وحن آدي أدرنتي أن لنا هم مدرس ومال لنا هو ديار جرودو دورشة حري حلالة يدوان قلنت أو مدة كوبان كهرين دونت إن شاء الله iyadoo dhammaanteena taa xilna waa saaran inaan qarankan doorashada wuxuu ku iibsamaya qaranka Soomaaliland ama maanta magac iyo martabad iyo sharaf ku leeyahay doorashooyinka dimuqraadiga ee inta dhowr sanado Soomaaliya jirtay aanan ka dhicin dalal badan oo la ictiraafsan yahay maantana waxa halka magaceenu ku meel maraa ama adduunyadu inagu majeerataa waa nabadgelyada iyo doorashooyinka dimuqraadiga dalka dhaca marka waxaan leenahay maanta qorayaasha mudadaafka noqday doorashadoodii loo diyaar garoobo inagoo ku xisaabtamayna danta guud ee wada leenahay ma ku xisaabtamayna oo nin walba uu ka tago dantiisa ee gaarka ah markay teena guud hagaagto iyo teena gaarka hagaagaysa marka waxaan leenahay shacabka reer Soomaaliland maanta laga bilaabo nin walba dantiisa gaarka meel iska dhigo hanuu diyaar garoobo inuu qarankan maanta doorasho xor xalaal ka dhacdo oo si nabad u dhacdo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.